qodobka koowaad waxa weeye toddobaadkan sidii ogeydeen waxaa khasaare xun ka dhacay oo ciidamada Kenya ee cirku ay geysteen shacab Soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka Gadeec Caalwaaq khasaare runtii shacab baa dhacay arrintaas inaanu cambaarayno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunnahay horena waa uga hadalnay haddana inaanu ku celinno runtii khasaaro wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa 6 carruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee Caalwaaq eeriyadaas mar kale haddana Somtal iyo Hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynayna waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dawladda Kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud AMISOM ma fulin karaan wax duqeyna kuma soo xadgudbi karaan xuduudda taas waa taa magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid ah Caalwaaq waxaa ka mid ah Caalcadde waxaa ka mid ah Cawsqurun waxaa ka mid ah Dhadhaable xuduudaha waa garanaysaa magaalooyinkaas u dhow gobolka Gado xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeelay aad baan u cambaaraynayna waana ka xunnahay waana u tacsiideynayna intii gooriyootay dhaawiciina wuxuu inoo jiifaa carruurtii isbitaallada ilaahay inuu boogeedhayo ayaan ilaahay weydiinaya qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan sida ay la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu diraa intii dawladdiska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas u socday dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray waynu uga mahad celinaynaa qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalkeenu rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof fara majuura qangaara go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isaga ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho dhalinyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynayna inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda laga sheekeynayana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuun bay leeyihiin arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin bay Eritrea ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybun bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyana ma jiro laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadi bari dhaweydun bay ahayd markii la isku haystay xeebta liido lahaa ciidamada Itoobiya xeebta liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya ay Tigray qabsan ma jirto ciidamada Itoobiya way ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo tiro ahaanba way ku filan yihiin sabab ay Soomaaliya ciidamada Tigray ugu dirtaan ma jirto taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo wama markii koowaad aynu warkaa maqalay waa markii sagaalaad waa markii tobnaad markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo la ogaadaa sababtay dadku waa human being oo bini aadam siyaasiyiinta dunidu
kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababtoo waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taabtaanka laakiin siyaasiyiinteenu waxaad moodaa inay ajanda doorasho ka dhigteen campaign doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan sacabka wala wuxuu arkay wala habeenkii sacab tumaysa markaa wuxuu yidhi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin arrimaha dhacaya carruurtaa la laynayo xadgudubyada Kenya weli ma aragteen hal siyaasi oo ka hadlaya hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan carruurta maxaa loo dhaawacayaa maxaa loo duqeynayaa maxaa loo burburinayaa hormuud laga rabaa maalin walba maxaa sababta loo ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gabagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka Soomaaliyeed hagardaamada cadow si shacabka Soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowgu samaynayo dhibaatada shisheeyuu samaynayo xasuuqa ku socda xadgudubka ku socda dhibaatada ku socota si indhaha looga jeediyo shacabka habeenkii waxa loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada Turkiga inoogu maqan iyo ciidamada Eritrea ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca dalka shacabka Soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo waa ka weyn waa naftii dalka waa dhiigii waa wadnihii riboodka UN-ka lagu soo celcelinayo waxaan aaminsanahay riboodka UN-ka inay Facebookyada siyaasiyiinteena ka qaateen sababtoo waxay leeyihiin waxaanu maqalnay ciidan Soomaaliyeed baa Aksum qabsaday riboodkii intaas soo maqlay UN Human Rights wax evidence oo cadaynana ma keenin waa maqlay wuxuu ku sii daray laakiin dawladda Soomaaliya way beenisay siyaasiyiinteenu ma soo qaataan inta dambe inta horun bay soo qaadanayaan kadibna waa aayadda quraanka ahayd weelu lil musalliin waxa hoogay kuwa tukada intii dambe laga reebaya alladina hum an salaatihim sahun haddii inta laga reebo maxay noqonaysaa aayaddu way kala dhinaanaysaa marka waxaan isleeyahay riboodkan inta hore laga soo jaraya waa weelu lil musalliinadi waa intii hore laga soo jaray waxa weeye ciidamada Soomaaliyeed waa intii hore loo sheegayay ee Facebookyada siyaasiyiinta Soomaalida ku qoraa inta la soo qaatay riboodkii UN-ka lagu daray kabacdina waxa laga dabageeyay dawladda Soomaaliyeed way beenisay taa macnaheedu waxa waxba kama jira riboodka UN-kana waxba kama jira waraaqna waan qornay aanu arinta ku faahfaahinay waxaan ugu isleeyahay marka inaan shirkayga jaraa'id ku soo gabagabeeyo dalkeenu waa dal dhismaya baahida koowaadna wuxuu qabaa amni iyo ciidamo amnaan ka sugan waxaan ku celcelinayaa siyaasiyiinteenu inay mar walba dhowraan dawladda waxqabadkeeda shaqadeeda caafimaadka biyaha boqol ajando oo kale oo laga hadli karaa jira waanu ka doodi karno waxaanu ka qabanay siyaasiyiinta kalena oran karaan sidan si kasii qurux badan baa loo qaban karay laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadeyn meelay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeenu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadeyn hooyooyinkana maalin walba laga oohinayaan aan laga oohin maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda huraya laga dhaafo ayaan leeyahay Etoobiyana ciidan Soomaaliyeed uma baahna waxaan kaloo aaminsanahay in dad badan isku qaldaan haddii qof Soomaaliyeed xitaa lagu arko ciidamada Itoobiya Soomaalida Itoobiya degan waa qowmiyadda saddexaad ee Itoobiyaanka wal hadda maqla Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad Oromada ayaa ugu badan Amxaarada ku xigta Soomaalida ku xigta oo ah 10 milyan oo Soomaaliyeed ayaa joogay Itoobiya oo Itoobiyaan oo dalka ku nool xuquuq leh marka haddii aad aragto wiil Soomaaliyeed oo meel jooga hadaad tiraahdo waxa laga soo diray Muqdisho waa ayaan dar iyagana waxay ka qaadaysaa Soomaalidii deganada Itoobiyana xuquuqdooda way ka qaadaysaa oo qowmiyaddii ugu weyneed saddexaad ee dalka iyagana yaan xuquuqdooda laga qaaday oo aan roolkooda ay dalka ku leeyihiin
dalkooda ku leeyihiin yaan laga dafirin ma aaminsani waana ku celinayaa baahi ay u qabto Itoobiya inay ciidan gurmada Soomaaliya ka hesho iyo baahi maanta Soomaaliya ay u qabto